horta maalinta waxaan lagu yiri ku soo saqiiraafin hay berita shanta hay shantiya barka ha iidhada ha qofka ku guulaysta ka dhigaysta idaacada way qaar anaga oo dhalinyaro ah oo meesha ka shaqeeya hay oo ila yaaban hay oo la waarmina Saleebaan Bidde iyo Hurye iyo miyaad raga meesha hay calis wili waga wajhi calis ha Way. halkaas galkasta ayuun baa lay markii aan ka tagay waxa lagu yiri ha waxna aanay samaleeday hay nin walba aanay staas sheeg wat aniga markaa maxamuud kaliya la yaqaan way hooyadii baa maxamuud deegi baxsay ha baga yara way wasaan deeg baa maxamuud deeg baa hay horta deeg wuxuu duulay ha oo soo baxay wa maalinta oo markaa way wuxuu baa leeyahay maxamuud maxamed yaasiin deeg loo yaqaano ayaa ku guuleystay way kolkaasay BBC koolihii igu waaday way Oh. waa lagu fuladay waa tahay wali ninku keen moodina ma hay dabadna riwaayadaasaan sameeyey way waa talaya talaab way inkastoo imika ha waqtigan aan joogo ha aanan jeclayn in aad heestii waan iska xidhaata way inuu xataa heesaha ha waxaa la diidayna Ha. xigmadda maaha wat waa laba way waxa weeye nin iyo naag gabadh aan isqabin ha oo aad xigmaddaadii ilan markaan imika wax garanayahay wat aad xigmaddaadii isku keenayso way waa dembi hay ya sifaat sifeynaysa qofka quruxdiisa iyo dee horta quruxaya waxa waa la sifayn karaa Way. laakiin iyo muusiga waa iyo muusiga ha labada dembigii waa labadaa wat muusigaa la garaacayo iyo labadaa qof ee aan maxaru isugu xidhnayn way xabib iyo macaanida isahaya way way iminkaad ogaadeen dabeedna waxaan sameeyey maxamed axmed actarkii baan ka dhigay nin ruwaada magaceedu maxaa tala iyo talaaba laba talaabo dhexdoodba tala ka dhalata wey macnuhu waa talay talaab waa tala iyo talaabo Waa. waa laba talaabo dhexdoodba Tala ka tala ka dhalata mahmaadsan ka dhex talay qaata iyo talaab ha way maxamed axmed baad ka dhigay maxamed axmed waa nin faqiira way oo wax bartay way adlas buu caruurtooda reerkooda ku masruufaa way shaarkaaga cadoo kale hay ayuu gashan yahayoo ha halkanuu maraayo magooloo oday saalax bartaan la yidhahdo taajir qabo way oo fooq ku jirta hay ayba halkaa ka eegta way allahuna inanku qurux badana hay ilaahay rasuulka haddii la shaaliqa ha inaan waxba yeela cunaa wat cidima maqlayso way iyada keligeed halkaa kale way isagu ma oga hay maalintii dambe ha ayay maryam mursole la saaxiib tahay tidhi ha ninkaasaan u dhimanaya way weligeena lama hadlin way halkaa u maro aan isu taagno wat ninkaa ila qabo way dee maxaanu idhahaa inagunba xoran danayna keen wat bartii ba istaageen hay haddee la hadal dee la hadal inankow maalin ay la hadlaysaa haa inaan waanku doonayni maxay doonaysaa inaad markii hore wan hadli waayo muskeetigi way waa dee waanku doonayna maxaad doonayda dee maxaad leediin shaqaan ku socdaaya gabadha aan ku doonaysay raxma ana doonayna naga tag sonaya si hablo waa jiray waa iskaga tegey wat maalin labaad dib haddii halkiisu tagay way maalin labaad dib weydiiyey waa ina tanaa ku jecel wat oo way ku ildarantay oo xaggee xanuunaysa mhm xaggee xanuunaysa wat dee way ku jeceshay hay tahay jacaylku ma madaxa ku wareeraya ma calooshaa ku xanuunaysa muxuu ahaa jacaylka jacaylku ahay way waa intaan uu iskaga tegey way aduu dhowr goor markuu iskaga tegey hay ayaa maalintii dambe ay heeskan la yidhaaho dadnimada aqoonsan ha ayay u qaaday wat markay aragtay inaan xoolo mooye wax kaleba ka sheekeynin wat oo ninkan xoolo dhibeen hay ayay tidheen sidii ruux dallagan oo doqonnima haysaan adigoo idiidan ku doondoonayay mhm danna waan ismooday mhm inaan kugu dulmeeroon ku dib jira agtaada adiga oo ha watay danna waan ismooday Mhm. inaan kugu dulmeeroon ku dib jira agtaada Mhm. dadnimada aqoonsoo jacaylkan la diiday Mhm. waa intuu ku daaree Mhm. may dirirhaysa wat isna wuxuu inan yahay diraac iyo dirirkooda kala wacan mhm adoo doogarkaayana lama dega abar wat dirqa guur nintiisiiba daayacay ka kala dugsanaya aniga la duqsan watay ma garta hay dadnimada aqoonso Sidii sidii dumar dumar xishoodo Mhm. hadalkii la dadi jiray hay hataa hadalkaa la dadi jiray Haygo odhan waxa weeyaan waan ku jecel Aad iyo keliya aad. ayaanba odhan jirin watay hadalkii la dadi jiray haygu odhan dabada hay waxaad tidhi inayo dushaadaa laygu daadshay malabo Mhm. horaan kugu daaloo ku baday karaaye watay anigana dushaada lay mari dacar buur way inay yahay dushada la imari dacro ha ha dirqa ku raacay dooqa ku raacay watay waxay tidhi intaa dunida noosh iyo dalluunta iyo iilkii haddii lagu dugaba darafkaa ku haysta watay nafsiguna ma daalo ha dulmi ninkii cantuugaba hubka soo duldhigaya dadnimada aqoonso jacaylkan halde wuxuu yidhi
dembi kaama gelin oo duunya kaama qaadin sidaa hayla doodin ilaa marka ilka lagu duway ilaa daarta aakhira maxaa kaa daba dhigay ya haye maxaa kaa daba dhigay waa tahay dadnimada aqoonso jacayl dumar xishood adeerkeedii way inta dunida noloshiyo dallunkay iyo irkii haddii lagugu duuganaa gacalka aan ku haystaa danna waan ismoodo daday adiga oo nool danna waan ismoodo daday adiga oo nool mid kale lama degaayo dadnimada aqoonso jacaylka aan la diiday dadnimada aqoonso jacaylka aan la diiday waa intuu ku daare may diir naxaysaa dadnimada aqoonso jacaylka aan la diiday dadnimada aqoonso jacaylka aan la diiday waa intuu ku daare may diir naxaysaa inan yahay diraaciyo dirir hooray kala wacan aduu duuq arkayana nabadagu abaariyo inan yahay diraaciyo dirir hooray kala wacan aduu duuq arkayana nabadagu abaariyo lidisiiba daayacay ka kale dugsanaya lidisiiba daayacay ka kale dugsanaya ani ikala duqsani lidisiiba daayacay ka kale dugsanaya lidisiiba daayacay kakale dugsanaya ani ikala duqsani dadnimada aqoonso sidii dumar xishoodo dadnimada aqoonso sidii dumar xishoodo hadalkii la dadi jiray aygu odhanin dibadii dadnimada aqoonso cadabnimada xishoodo dadnimada aqoonso sidii dumar xishoodo hadalkii taasay tidhi ninkii wax xoolii weli kasoo degi maarta dunyadan aad ka hadlaysee dunyadan aad ka hadlaysee dunyadan aad ka hadlaysee doodii aad ku dhawaaqdaba kaaga soo darsamaysa haba sii daba joogayna waxaanad ugu daalin imisaa duunya lahayd oo daara meel walba jeexday oo dahabku aan sarifnayn ku disaayey sanduuqa oo sanadkii ka dambeeyeyna damiiloo ka dhaqaaqoo dawarsadoo suuqa maraya imisaasa daleesh iyo dambaska jiiftay gidaarka oo maanta dowlad ciyaartay oo dul joogaa waktigoodii oo saxeexa ay dirayaan iyo jeegoodii duulahaya oon dib loo soo celinay dunya neefalahaan anigaa kuu doortay dawladii aad u shaqaynayni anigaa kuu doortay haddii aad dabadda iyo daleesha igu aroosto anigaa kugu doortay dadkaba ugu xumoowo anigaa kuu doortay salee baan hay doqonayn haygu dayrin jacaylka diintaadaan kugu dhaashay walaalii dabac maanta bay tiri kolkaasuu yidhi bal duuboo gacantaadu intuu saa yidhi daloolkaa dhegahaaga ku dayo ma marta oose hoos foorsatay bal duuboo gacantaadu daloolkaa dhegahaaga
ku dayo ma marta doodan aad ku hadlaysay aniga maanta dantayduna waa gacantaa ninka duubay ku dayay dhigtay soo iga daadegi maysa bur qoosay dhulka qab isku siisa waay waa suuxday ha waay qoosay maan arkaynin laba hablood oo kuwii daawanaya iyaguna suuxaa la yidhi waa tahay oo tiyaatar qeyradii mataqaana meesha wax ka ah dhacay waay qoosay iska dhaqaaqay dadkii baa ku fuulay weeg wasu saawaga yidhi warwaba naloo soo saari tan yana intay lixud kala soo kacday tiri war roo dadkaaba kula yaabi doon wasteedii lixdii wasdeedii lixdii dadkii oo dhan baa ayaa mataqaana wada ha aad wada aan xilban ama abwaan midkaan doonaan idhaahdo intaynaan dadnimada qoonso ka fogaanin hargeysa waxaa jira rag kale oo nin abwaan oo aan qudhaydo magac dhabi maayo hadda inalama joogo laakiin ay kasoo duushay heestaas inuu isagu hal abuuray maxaad arrintaa iyada ku xaqiijin karaysaa oo maanta haddii aad halkan chance u hayso aad leedahay dee sumadii geela waa la kala yaqaanay ama sawircii mataqaana loo raaci jiray sidaa iyo saasay ahayd ninka waan qanciyey waxaan ku yidhi wax alla waxa waa ku wareejinaya horta riwaayadda waxaan ku yidhi cidiya laba igulama noqon cidi laba igulama noqon singu baa habeena noo yimi oo heeskan la yidhaaho tukayahow bay dad ku daray cid kale oo noo timi oo mu'alifa oo muusishana heesaheedana tanna waxa uu sameeyey axmed cali gaal beri horena waxa uu sameeyey isaga waa badawi dib u celinta soo baraarugay heestii maryam salayo ay wada qaadayeen joof waaye heeska kale maxamed jaac joof iyo wada qaadan maryam salayo la yidhaaho rag iyo dumarna waxa uu sameeyey Saciid Xarow haweenku yidhaahdo ha Saciid Xarow hees kale oo Cabdilaahi Qashi u sameeyey oo la yidhaaho loo jeedin ugato oo aanu maxamed axmedna idaacadaba ka duubin oo ay magool iyo maxamed axmed qaadiyeen taana waxa uu sameeyey Cabdilaahi Qashi sida carabka beeruhu bay ku jirtay sida carabka beeraha waxa noo keenay muusik qali ah xasan grid waa nooleysna waa jooga ayaa noo keenay wuxuu nagu yidhi bal muusiga cod ereyo midha jajaban buu oo sida carabka beeraha kaade oon dee murti ahayn ayuu sameeyey oo ku duubay soo duubay bal laxankaa u sameeyey muusik inaad midha u samayn kartaan haddaad riwaad samaysaan sacamka beeraha saaray marka codkii kaasuu noqday ereyadii iyo codkii waxay isku qaateen si aan la arag saan la arag marka waxaa sameeyey kaana markaa ninkaa waxaan ku yidhi nin aanu bahali waa nahay haddii horta murtideeda waa la farataystay riwaadahaygii magacoodii xataa singuba hataa wuxuu qaatay niba tacabkii togay kamal ha oo waa riwaadii aan sameeyey aan ka qaatay afweyne markii uu yidhi abwaaniintiinani gabayaagu bal dawladdii hore waxaa ku dhaliilayseen iyo tan dambe waxaa rabtaan inay soomaalida u qabato ka soo hadla een gabaygii bilada qaatay ayaan ka sameeyey riwaayadda dawladdii hore wixii lagu dhaliilayay iyo tan waxaad raba inay soomaalida u qabato ayaa niba tacay dawladnimada niba wuxuu gashada buu kaa helaabay singu baa riwaayadda midha ku dhigtay kowladii anna 8 habeen markay socotay baan gebigeedba iskaga tegey oon koox ka haystay oon la galay East Africa ha marka waxa weeye waxaan ku yidhi niyo anigu waan haddaad doonaysa heeso gebigooda idaacadaynu tegayna waan ku wareejinaya haddaan waxaagina waa la farataystay dhowr iyo 10 sano ka maqnaa waddanka haddaad farataysan weydood qaadan weydo intii riwaayaddu socotayna aan laguba arag oona ku arag inta ay socotayna mar qura intaad idaacadda dalabaadkii number 1 ka ahayde heeska aniga aanooda imika aad ii sheegtay imika intaan dalka kusoo noqonay aad si aniga ale anna aanan ku aqoon bariga xamar inaad joogteen kalaba dee anu markaa meesha meel ka soo gashay haddaad heesa u baahantay aan ku wada siiya markuu haddii kale waa kan maxamed axmed aad iyo ragii dibariga roada kii codka sameeyaa joogo haya joogo in aan ciyaar imika music aan ku sii telefikiisi khatar ma ku siinayse khatar dahir baa ku telefikiisi ku siinayse imika la hadal ha cid u dhiibtay tii adaa u dhiibay buuri hota maxaad leedahay adaa u dhiibay anu ma adaa dhiibtay maya yaa u dhiibtay maxamed salmaan tii hadda nabi sallallahu alayhi wasallam doona maxamed salmaan haddaad hees doonaysana aan kuu dhiibo kulli kugu ilaaho waxaa sameeyey cali haddii kale inta heeska ma samayn iska haddii anu halkaas ay ugu dambeysay way aan ruwaadda markaa tala iyo kusiska sida canabka beeraha wuxuu ku jiraa heesaha qudhaydu markaan aadka yacnihii aan sii da'dayaran carruurtaha aan aadka u jeclaa ilaa maanta waxay ugu jirtaa gaarigo aad baan u dhegeystaa ma gabowdo oo isma bedesho waxaan aad u jecelahay dhul barwaaqa marka uu sifeeyo dhul caynkaas iyo saas walba saasoo cawshu gaardiyeysa marka uu leeyahay midhaheeda maxaad ka xusantahay wuxuu maaraysinuun dee inaan ammaan
وكين عليني العسكر كنتي معني عادي وقرلوك أسوكي كويالو أسو قرديسو عو حالي عم عيد بحلها علفني مكسيو تكلو ونارو عويسا عو حالي عم عيد بحلها علفني مكسيو تكلو ونارو marka maxaa igu yidhi ninka la yidhaaho allah u naxariistee ninkii dhintay berigii dhaweetee la odhan jiray ismaaciil cagaf ayaa igu yidhi imsa sanad imsaad wax jecleed buu yidhi aniguna waxa uma jeclaba xaas marka baad lahayn maxaan lahaa maan waxba jecla wax yaro dhuumaan garyashaada matoor maan waa tahay jacayl reer ma madgaarin intee la wax jeclay waa tahay weligii waxba jecla baa way wuxuu yidhi 20 sano dhowr iyo toos wuxuu yidhi ayaan wax jeclaa waxaan kari waayey intuu samada ila tegey saxarqaada fooraa dul sabeeb ma igu yidhi xageed ka tibir heeskan abuu adiga lahaa waa isla wada haye soo tukaa markuu kala qaadayo magool iyo maxamed axmed markuu tukayo u qaado oo sheekadan ku soo marin doonaa say ku timiyeen sida caalamka beeraha waxaan si taasadi weydiisay horta inuu amaan baasi sida caalamka beeraha ama keen cagaar iyo dhul ama keen caleen iyo dhul cagaar ku sameeyay caadiye gar loo gubay cusubkii ku yaalo cawshu gaardiye soo cid daaqin baatay awa waxa leh ama ceel bixila calafnimo ku siiyo inta kala wadaag gool ku cawisa dhulka quruxdiisa uu ku amaaray iyadoo cirka quruxdiisa ku amaatay cirka oo daruuriyo casar hore daruurtiyo عاد سبح لموديو واحد يلا عين تاعي طيحوا عويسكي عرقوا موديها لوكا ودا عديين عوا وحله اما عيل بحلا عرفني وكسيو عرفكم عطا دير نصيبيو عرفوا اروسي عرفكم حمرتي تقولكم عيارته مرقاسو يري عباريها كركاغيو عدوده يلا فيها عادلكي كوما قروح عين لا دونبا إنا يهاي تين يعرب عادك كو دميو عيبا كافوغيشي عيبا كافوغيه أو وحله أما علم هنا عرف المكسيو عندك كلو عاوز أبوي العود كرهو علمي يا أقون له عقل سريعته روحان عاو كراسي ما إفك عجها صوري عند الشيء مساعدون بيعتبيه بيت أو وحله عتاب دين نصيبي عرف كوارو سعرو كمان ما تقولي سيد عيد دوينه عربتي دلينتي isu soo cadayso golihii cayaaraha caweyskii isugu timi arfigii udgoon kana caynkoodii baa tahay ya aw xale
ama cilbixina caafimaadka soo cunay goolka ciyaarta waay koosay iyaduna beedka ugu jawaabtay imika ugu jawaabay saddex ayaa hay weliba waxa aan la ilaawi karin ha markay leeyihiin yani dadka waxa xaada dhaqaajisa waay taas waxa timi inantan maya la yidhaaho ina saalax bardaan markaa uu maxamed axmed ay meesha lahayd haddii beed maayo dadkaaba kula yaabi doona awil hadda waxaad yeeshaa waan isu kaa sheegaya aanu dee nacaynkaas aanu nin faqiiraan laakiin aan ahaadee aabbaha iyo reerkayga dee ugu dhaqan yihin adna aabbaad leedahay dee ama hay kaa diido kolka hore ama hay kaa siiye labada reer baan isu keenaya waa hagaag ba jir aabahii samatar dilaa la yidhaah ayaa sida afar oday ka haystay saalax bardaan bay u tageen kolkaasay yidhaaheen inankii iyo inantii way iscaashaqeen waanu kaa duwayna dee yaab iyo qudur u go-ay oo heedhe inantaydu laba jaamacadoodna dabadday kasoo dhamaysata imikana mid kale u baxaysa inankaagu xaggu wax ku bartay dee inankii waa kaalkaa iskuulka haysta halkaa wirta soo samatar dilaal maad hayn waxaad yeelaysaa bal iyadaan arkayaaye horta iskaga tegey iyadii buu bur siduu ugu waday maqsin buu ku xidho wuxuu yidhi waashmaanku yidhi markay kaajaysa iyo markay wax cunaysa keliya ka fur halkaasi ku xidhantay maalintii dambe ayay waashmaankii laalushtay halkan dibadda ayay yidhahen waan kugu sugaynaa maryam musabatii soo bax way soo u yeedha halkanaa loogu yeedha markay sidaa isula soo taagtay ayuunbuu saalaxoo ka yimid dabadda isha qac ku siiyey tow markase guri ku cartay rasaas baa laga durriday maxamed axmed iyo maxamed jacjoof iyo maryam musa saddexaas iyadu guriga ku cartay iyo kala xaggeeda soo yacay maxamed axmed buu maxamed jacjoof ku yidhi waryaa waa ninka inta inaan xabadi ka dul dhacay heele dhulka bar joogta maxaa kaa idhasaaray hablahaasaynu mid ka naqaysanaynaa dib dambe saa ugu soo noqon aniga taasunba ii tahay haddaba anigu haddaba anigu shuqul dambe kuguba leebu iska teg buu iskaga teg halkaa isagoo taagan tukahan waxaa dilaacisay digaagad nin abgaaloonu jaarree baa leh digaagad baa dilaacisay isagoo kuna baa lasoo qaaday digaagad baa dilaacisay nasiib baanu nidhi markaan heeskaa riwaada gelinay wuuna siiyey maxamed axmed oo saa u taagan ayaanu tiyaatarka xagga sare isagoo dur madoobe halkaa kaga xidhantay yaanu soo daynay kuwaasuu saa u qabtay qaaq markaasuu yidhaha kuwaase dadku waa sixir dadka waa sixir waa bishu toban weeyo tii oran jiray kuwaasuu yidhi loo kala tag hawliyo loo kala tag loo kala tag hawliyo ninkii tamar yaraaye tololo maxay noqon toddob guuxa iyo tog baa igu furmay yay tallaabin doona bishii tooman weeyo tiradaa habeen kala adoo tegi karaaye tukayo fariin adag tan loo kala tag hawliyo ninkii tamar yaraaye tololo لا تجهولي منك تمر يراي طول اللوم وحينه تدقوا حيو وقبايقو فرمي يتلا بذو
markaasuu halkaa ugu xidhay warqadii fariintii u xidhay ha haye sidaasuu yidhi waay duntii baa la qabtay fooqii waa lala duulay waay magool baa loo geeyey waata oo meel baksigii ku xidhan waay magooloo ka furaysa ha ayaa daahi laga furay waay tukii haysata dadkii oo dhan caashiq baa galay markaas kowdhi Waay. markaasay intay masal guura caashaq qortay Ha. ayaa halkaa ugu soo xidhay waay masal guru caashiqani ani sibiq ma igu Ani yidhi sibiq sabada ila tegey saxarqaada fura dursabe ma igu Dursabe ma igu. dhalanteed ma igu sabay Waay. soo jeeda maqan saxanay ma igu saxanay masal guura caashaqe ani sahal ma ii helay way sambabadiiyo feedhaha intuu suruma kala baxay ma ku soo fixiidada seedihii iyo lafaha iyo wadnihii masar u halistiiba suran yahay masal guura caashaqe ani salow ba igu ismaaciil muuqaldana markuu kuli imsaad wax jecleed dhew مش معقول aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa abwaanka daawadayaal qayb ka mid ah badweynta suugaanta
abwaanka weyn xildhibaanka golaha guurtida ee Somaliland kamida Maxamuud Maxamed Yaasiin ayaan halka idinku hakinayaa qaybtan qaybaha kale ayaa inoo soo socda insha Allah aad iyo aad baad abwaan kugu macalay waqtiga qaligaasiis Thank you.